ninka jecel dadku inay u kacaan ay qadariyaan ha u diyaar garoobo buu nabigu halka uu fadhiisan doono waa naar haday ku kacaan iyo haday ku fadhiyaan waxba ka dhigi maayaan adigu waxa tahay baad wax ku noqonaysaa ugu dhinacna shariicada islaamku uma dhaafin qofka bini aadanka inay ku qiimeyso diin Allah ka cabsi qofka in lagu qiimeeyo mahayni baa dadku maanta cuntada ilmi bay cuntada la cuni lahayd waqti aan u laanahay nabiyullaahi muhammad alayhi salatu wassalaam saxaabadiisa isagoo diin ku baraaya dhaqanka wanaagsan amal ku gudbinaya ayuu oran jiray war xeedheeda ii soo qaado miskiidka ii soo dhex dhiga markaas nabigu meel uu ka istaagu waayay markaa buu labada jilib buu ku joogsaday labada rukba in arabiyo reer baadiye ayaa ku yiri tajlisu kama yajlisu al-abdu ya rasuulallah sada adoonkaad u fadhiisatay waa ku sidee markaa buu ku yiri ayu rajulin wa ayu abdin a'badu minni inna allaha ja'alani 'abdan kariman wa lam yaj'alni jabbaran 'anidan oo aniga adoonka iga adoonnimo mutaystay waa adoonkee buu nabigu ku yiri adoonka iga adoonnimo mudan waa halkii ku jooga ilaahay ba aniga iga yeelay adoon deeqsiya ilaahay iga ma dhigin buu mid jabbaar oo kibir badan oo dabeecad qalabsan ilaahay aniga iga ma dhigin mutawaadi' buu nabigeenu alayhi salatu wasallam mutawaadi' dadku iska dhex soconayo cidna ma ilaalinayn xataa saxaabada hadduu ku soo baxyo kormeel fadhiya inay isku istaagaan nabiga u istaagaan uu diiday rasuulku wuxuu ku yiri maalin bay istaageen war ma sida nasaaradu ay nabi ciise ay markii dambana u caabudeen baad rabtaa anigana aad ii caabudaan marka u dambaysa waranu adoon ilaahay rasuulkiisa baan iska fadhiyo nabigu ku yiri meeshiina ay kicin aniga markaa buu nabigu yiri ninka jeclaada in dadku ay u kacaan ha u diyaar garooba meesha uu ku hayn doono waa naar buu rasuulku yiri ninka jecel dadku inay u kacaan ay qadariyaan ha u diyaar garoobo buu nabigu halka uu fadhiisan doono waa naar dad haday ku kacaan iyo haday ku fadhiyaan waxba ka dhigi maayaan adigu waxa tahay baad wax ku noqonaysaa ugu waxa tahay ba yaad wax ku noqon hadad aad tiraadid ilaahay raali gali khalqiga ilaahay baa ka raali galin hadad tiraadid khalqiga raali gali waliga khalqiga mar raali gali karis marka dadka raali galintooda ha ku dadaalin ilaahay saad u raali galin lahayd bas ilaahay bini aadankana waxa ka dhaxeeya waa diin xiriirka inaga dhaxeeya waa xarigaas الإسلام إسلام لماذا قبصوا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون هدي من بان لقول يا أبو مسلم وياني مركا قيمه ودين خلافة عمر بن الخطاب الله رالي كان نقضيه هيا حفيظك عمر بن الخطاب مركا أد لو جري مركا dadna dibadda ay joogan dadna Umar bay la joogan Allah raali ka wada dhamaantood dadka banaanka taagan ee Umar sugaya waxa kamida saddex nin oo odayaashii Quraysheed ah oo waliba islaamnimada ku cusub marka waa Abu Sufyan wa Suhayl ibn Amr wa Harith ibn Hisham ridwanullahi alayhim ajma'in وصدح ذي أضيء مركا مقالة مكة لقدم بيان لقدم أهلين ولما مركا مكة لقب صديقه وضع إسلامين ومؤلفة القلوب بالله كرايو وضعت مركا دين تلقوا صودومي دين تلجعلي سيني مركا عمر بيسوقين الباب كي تاقيهين وانكي بواب كاها ايا جوتيو كوير والا نقوه الريا وانا للفر يا عمر وانا نيقو شاقي يا عدي الريا هلكا يري الصبر بو كويري halkii iyo ko taagan oo iska sugaya ayaa waxa meesha soo galay bilaalna waad garanaysaan ayuha ya nin xabashi iyo madowbuha Allah raali ka noqdo dhamaantood ninkii bawaabka aad arkay bilaal oo meesha taagan oo dadka ma jiidaye u istaagay ninkii baa ku yiri ya bilaal hay istaagin adigu ya gal u gal amirka bilaal baa dhaafay Abu Sufyan baa xanaaqo yiri
وسقبتي هدنا عمار باين عمار هذا قلنا قلبودي وقال أميركا بودي أبا سفيان بس حجين كرواية وحيري ورماشن ولا نقول بهدلة بودي هذا قريش نهي عمر ماشى ونقول بهدلة ما أنت عنك ما أنك وضيدي قريش سيدة أو الباب كتاجن أيا كوي شلي أنك الضومها نوعها أنت قداش يدا كي ما دان لنا دافنا يا أبا سفيان بهذا الكلام سهيل بن عمر بن العقل بدنها وحكوري ورياض بيقول هداد حناق إنسان سهيل واحد شجع حارثي أبا سفيان وهداد حناق إنسان لا فيه نوع عروض عدك له عروض إنه بكوري نولو نفت هذا عروض هذا هالكاش دي جماعة وسيرنا سكوت دقني وكسره الرئيني بيدادين عودي دقيستا رجاس يا أنك هل مركلية دعوة للنواب بندقوا نبي محمد مكان وقد حياري إياكم مالنتي من نبي جايبين إسلامي ماذا ودك دقنا هريك إسلامين إنكم مالنتي من إسلامي ماذا أنتوا كذب دعني ولي بدي داعي وحن سكودين إن نبي محمد أن لا دقال النور كإلهي دمنون بقتينه أي كاين نجد دفاعي بيوري هذا الكلام ما قشان مالك اللي نو ولا يرى رجل النبي جود دقين إنكم وان كذب دعني والنبي كان بيني أنا محمد وبين بعد شيء إيسا بل ولي بإنت كم تشوفين وان دبني والله دقال لني إياك إنك دفاع النور كإلهنا بختنا بيوري ولي بحفيظ كعمر إني جه الرأي بعد إنك الله يبتي هنا واحد وجاي بنيش شيء يقول آخره ترى جد قل دونا نكور ما بقولي سيد أدون كاجا هرمران بآخرنا كاجا هريان بيوري لكن وضع نفرم بودي ما تو وضع ده برجع آخرون ما لي جنة كدجين إن أنا يرجعون للنيدادو هل كاب بلالية جلان هل كا نيمو قطع ما درك سا بلالية جلاه ويكاني إيمانه ولي بجنة وعجيب جنة نيك كادرجات سرية بالليدي أسقو كوي ما دم وين هذا قومة يكرتيد بالليدي السجاه كسره أيا كهوس أوتجي كرا لكن كهوس يا كسره ما تجي كرا بالليدي وضع نوفرن بويد ووضع ده عندما مرابدين تا الشام كذا قال لما يا الدين تهلجن كيجي الدفاع يجي الدجال كيجي الجهاد كيجي كجرا هالرعنا بودي وضع كلا نوفرن مجري تبودي هل كان أنا ما جوجا يقول وان سعودي رار كي قال لا دردار ما يا شام بانو غوريا مجاهدين تشام كذا قال لما إنسان نقونا يا ما نصون نقونا يا إلى حلقة إلهي والشهادة يقول سيمو يعني وحلقة سوى وحلقة ضدك مسلمين تو أي في عنايان وحلقة ضدك مسلمين تو قبيلات أين نقونن وحلقة ضدك مسلمين تو لاندري الله قابن أين اللهين وحلقة قفك مسلم كاللقو قيمين يي محو قفك دين الإسلام كقشطي محا قفك سقى يا إلهي حجر كقد حيا وإنت خباب الله رالك النقطة عمر أكفر ديا أيوب بلال صوغ اللي بالي مالين كله بركة عمر بن الخطاب بكويري خبابو حلقة فريسة بكويري هل كان بلال وقع حق لماشى ما تشوق بكويري حلقة أودرق بلال كي راي مذوبة خباب بايري أمير المؤمنين هذا قال لنا يا سامان أنت والله وأنا هذا بيقول بل هذا البولي شيء ما حد شيء يا بلال تعذيب كيس ولا أركاي وأنا رن دينته تعب وسوقله وتضحيوضي لكن أنا قد دبعت دينته يسوق قاعد مياه دتك وش قاعد يمودي يقول واقر صدق وحاكو سوق قاعد يقول هذا قميص كي توسك قاعد ودبر كيس توسي لأنك دبر كيس هيلي بكم ما بيعلبه حرقي الله فاس كودك سن ونحي عمر ودبر قبتي أو هيلي بقونا كأولن إلا ضبكي بعد يا دمادو الله فوق بصوتاً وما هي خبابو أنا جاي تقول لي عذابي ما أنت أنا إسلامي نبي محمد أنا مني أنت قريشي عذابتي
ayaa qori dhamac intoo la ii shiday dab intoo la ii shiday ayaa dharka intoo layga saaray baa dhabarkayga sida lay dul dhigay buu yidhi fuuqii jirkayga ka baxaya baa dabkii damiyo baktiyey buu yidhi maanta ka horna cidna uma sheegin adaa hadalkayga keenay buu yidhi cumarow maalintaa intii ka dambaysay sayiduna cumar binu khadaab khabaab markuu arka fadhigu ka kici jiray marxaban marxaban buu odhan jiray khabaab quruntaasi dadku miisaanka saxda qofka bini aadanka shareecadu ay ku qiimaysay dadku ay garanayeen inaku maanta zamankan aan joogno waa zaman la yidhaha magaciisa indha ku garaadlayaal oo dadku yidhahdaan waxay indhuhu arkayaan bay ilkuhuna gooyaan sidaa maaha waa zamanka maanta aan joogno waa indha ku garaadle oo waxay indhuhu arkayaan bay ilkuhuna gooyaan oo dawaahir alumuur waxa inoo muuqda ayaa dadka bini aadanka maanta bini aadanku ku qiimeeyaan halka shareecadda islaamkuna qofka ay ku qiimeynayso diinta iyo dabeecadda oo nabigeennu waa kii lahaa xataa guurka markuu ka warramayey ninka dhallinyarada markuu guursanayay nebigu waa kii lahaa war haweenka afarunba loo guursadaa buu nebigu yidhi ama qurux ama nasab ama dhaqaale ama diin waxau nebigu yidhi fadfir bidaata diin war gabadha diinta le ku najaxo ku guulayso waad liibaaniya buu rasuulku ku yidhi saddexdaa kale nebigu ma ammaanin wuxuu yidhi haddaad guursan gabadha diin ku qaada gabadha diin ku qaado maxaa yeele gabadha diinta le adigana way ku ilaalin waxaad u dhiibatana way kuu dhowri ubadkaaga way kuu dhowri qaraabadaada way kuu dhowri jaarkaaga way kuu ilaalin ehelkana way kuu ilaalin gabadha marka la guurina nebigu waa kii lahaa hadduu inii yimaado ninaad diintiisa iyo dabeecaddiisa aad ka raallitihiin u guuriya haddaad u guurin weydaana arlada fasaad iyo fitnad weyn baa ka dhici doonta buu rasuulku yidhi diin baa qofka loogu guurin diin baa qofka lagu qiimeynaya zamankaas innaka zamankeennan markii diintii la baran waayey ee diintii tacab la gelin waayey ayaa qiimihii diintu ay lahayd ee qofka bini aadanka lagu qiimeynayey ayaa dadka maaragtaane ka dhacday qulubteena ka baxday maanta laakiin zamanku uu isbedelayayo ogow xilli waxaa la geli doonaa qof diin la uun la qaadan doono qof kaleba aan la qaadan doonin waana isa soo taraysaa xilli waxaa la geli doonaa ninba ninku ka alla ka cabsi badan yahay uu ka alla ka yaqaan badan yahay la qiimayn doono xilligan diinta la sheeganayo uu dhammaan doonaa khalaas sheegasho ilaa xilliga zamankana joogno waa sheegashowne dadku diinta may sheegtaan mise ku dhaqmaan imika ya way sheegtaan waa sheeganaa bas diin marka laga hadlayana soomaalidu dee diin salaadoonba u taqaanaa soomaalidu wax kale uma taqaano salaaduna waa meesha diinta ay ka bilaabantee meesha ku dhammaato maaha markuu nebigu sal allahu alay wasalam mafhuum adduun markuu nebigu noo macnaynaya waa kii lahaa qofka ammaano aan lahayn iimaan ma leh qofka ballan aan lahayna diin ma le buu rasuulku yidhi qofkaan soo tahaaro qaadana salaad ma le buu rasuulku yidhi salaaduna diinta islaamka waxay ugu jirtaa halka kurkaasi bini aadamka ugu jiro fa diinteenna hanu soo noqonno insha allah dhahada oo ha qabsanno waa marna qabso marna siidaa maaha ku dhimo man axaba an yuzaxzixa can الnaar ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله وليأتي إلى الناس
بما يحب أن يؤتى إليه هذا المعني سوها النبي عليه الصلاة والسلام وكيلها نك جعل النار تلقى ديريو أو شندنا لقليو يينا أجش كو إمام بالنبي يري إلا أجش هاوتي ما ديسوا إلهي آمين سر إلهي كوكل صوب رسولك يري dadkana ha ula taga buu nabigu yiri waxa uu jecel yahay dadku isaga inay ula yimaadaan wata mafhuumu diin waa kaas ninka jecel inuu naar ka badbaado buu rasuulku yiri jannana ninka doonaya in la geliyo naarna in laga badbaadiyo ninkii jecelow geeridu ha ku timaado buu nabi maxamed uu ku leeyahay adoo ilaahay aaminsan oo ilaahay ku kalsoon dadkana ha ula yimaado ha ula tago waxa uu jecel yahay dadku inay isaga ula yimaadaan bimaana waxa aad dadka adigu aad doonay inaad kala kulantid adiguna dadku adiga ha kala kulmaan weeyaan dadka run baa rabtaa inaad ugu tagto adigana run ha lagu yimaado dadka amaanad rabtaa inaad ugu tagto adigana amaanaha lagu yimaado dadka ballan buuxin baa rabtaa inaad ugu tagto adigana ballanta ilaalinteeda ha lagu yimaado dadka cadaalad baa rabtaa inaad ugu tagto adigana cadaalad ha lagu yimaado dadka ihsaan baa rabtaa inaad ugu tagto adigana ihsaan dadku ha kugu yimaadaan oo muxsin noqo adigana naxariis baa rabtaa ummadda inaad ugu tagto oo dadku ay ku naxariistaan adiguna dadka u naxariiso waxaad jeceshahay dadku inay kuula yimaadaan adiguna ummadda ula tag buu rasuulku yiri waxaad jeceshahay dadka inaad adigu aad ka heshid adigana dadku ha ka helaan diinta qofku waa labadaba lagu miisaamaa diinta waa mucaamala maca allah ilaahay iyo adiga mucaamalada naga dhaxaysana adkee adiga iyo bini aadamka mucaamalada naga dhaxaysana hagaaji haddaad tiraahdo taaniya ilaahay naga dhaxaysan hagaajin ta bini aadamka naga dhaxaysana waa ku tuman diin maaha diinta nabi maxamed maaha taasi diinta Soomaalida diinta nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan atadri man al muflis bu nabigu yiri atadruna man al muflis qofka cayda miya taqaanaan saxaabadu waxay yiraahdeen cayd waxaan u naqaanaa waa qofka lacag iyo mataac iyo waxba aanan haysan markaa buu nabigu qofka caydu waxa weeyaan waa qof maalinka qiyaamaha salaadii iyo soonkii iyo xajkii iyo zakadii buu la iman doonaa laakiin dad badan baa hortiisa joogsanaya oo odhanaya nin walba xaq buu ku sheegan mid uu xantay mid uu caayay mid dhiig buu ka daadiyey mid uu dilay mid wixiisii buu ka qaatay mid uu dulmiyey markaa buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaasaa ilaahay odhan doonaa addoonkan camalka wanaagsan uu soo shaqaystay ka qaado iyo ka siiya oo jannada ha ku galaan markaabaa dad kale weliba soo hadhayaan dadkaas soo hadhay baa lagu odhan doonaa camalka dembiga iyo ku ay wataan ka soo qaado isaga madaxa u saaro naarta ku tuuro baa la odhan doonaa haddaad tiraahdo xaqa ilaahay waan ilaalin xaqa bini aadamkana waa ku tuban haddaad tirahdid kaama soconayso marka ilaahay hanu soo noqono ha toobadkeenno oo zamankan joogno waxaan garana waa xilligee ودعوة هكذا شغينه إن شاء الله هذا يا رنقو خير كذا وقيد ذاتك مساجد وقيد ذاتك دين توناك يد وقيد ذاتك إلهي كحد إلهي بعدك أنا كوجر جاري مركز لذلك مؤذن كسومادر كان مؤذن هو الدماء صلاة كما تكتئ السجع ما داموا يريو ذاتك حاجة صلاة وقول يريو صلاة دي بإلهي السجع ودي بيريي كذلك إنك داعي ذاتك صلاة يا مسكين كي دين تقول يرى السجع إلهي دين تقول سجع يقول دين تنونا وحي كونا أكسناني سوا معي ومركز قلبك إيمانك معرفة إلهي أي دكتو أي عبادة هذا أي معاملة هذا أي أخلاق هذا أي دين هذا ونكسنان الله ينوافق إن شاء الله كل هذا الكواس كبدأ كهذا الدين تو بدأ زمن كان لكن خلقك ويريح أنت أولا هلا يا علماء ضوي نودجيان دين تو ودجيان دعاء ويورجيان خطباتنا وخطبتين يان
لكن اسبدل كو يريح اسبدل ما موقضه ويريح يدوم موقضنا مجمعنا اللي يربطوا بدنتهين دا دونا مستقبل في عن يا دونا مستقبل في عمل عنتها تاكو ان شاء الله هذا مستقبل في عنا يا هيا ده حق يسودونه حق إله ودون حق له ودون التهريب دول قال الله ما تهريبه أصحاب الكهف دين بيقول تهريبين تاريخ في عام بيسبعين وكهرني هذا يقول تاريخ حنين أدوك كوجلين إن لورن ويدس وحلية تدك أي تهريب ينو وده هبل كود عليه بعض طريقة كود انتو كليها لقلا بحيان تاريخ حن تاريخ ذا كوجلينه سدا أصحاب الكهف تاريخ في عنا كوجشة إيمان كاجي إسلام ما ده حال كوبد بعد السد دونه فك مسلم كا ماشي دين تيسداوا عايشين وتجا دين الإسلام كم ما أقوله دلني يرد القرآن كوكور رمي سورة الكهف لقى كور رمي ما هين دلني يرد قيسس فقراء ومساكين كسوج ده مودين قيسس مال قبينة كسوج دنيا مضحى لكن إلهي إيمان كإسلام ما ده مركو كوجل لا يستي إلا يدي دل كان دين كلا لقى ما أقوله دين تبقر كمويانه وبقر كلا عبودة أي يرادين دل كيني دتينا هم وينه لكن دين تيانا وين أو تهريبين سيد دين تودو إلى اليان سيد إيمان كو إلى الشدام بأو تهريبين تاريخ ضوان كقرآن كو كورمايا قرآن كنا هو النبأ قل هو نبأ عظيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم ولا تعلمن نبأه بعد حين والنبأ خبر ما هو قرآن هو النبأ خبر ومحي أخبار واحد تجيب الله ورما وخبر كاسي لكن نبأ هداد مقاشد بالعلماء ليهين واحد ما أنت جوج قرآن وكور رميا وحي تجينا قرآن وكور رميا واحد صوص عندنا قرآن وكور رميا مركا إياك قرآن كابا إلهي كور رمى تاريخ دودي ولما هل هبين بيجورين هل هبين يجورين بالليل ويعبسي أي لا جورين إيمانكم إني بدباديان إلى قيامها قرآن كلا كجور رميا سورة ده وسورة الكهف وكنبي يري طبعا كهرة وفي رواية طبعا كآية وده الدمبة لبدا بآخر السوء نكمل والبل لبدا آخر السوء نبي يري أما طبعا كهرة أما طبعا كدمبة لبدا بحديث ويكتم ده عصم من فتنة الدجال فتنة الدجال بإلهي كإله لياب رسولك يري وسورة اللي يرادك ورميسي أيا ما دام يكو أي كبحين فتنة بني آدم سيدو دايدي أنا يعبدوا إله اعترافا مركز يكون هذا مي هذا بشر حارية كاذلات يمحك كعبدنا أنا أقول ربك يقول رب السماوات والأرض بيد هذه مركز كدور بدن ودن كإني جوجان قال لما كن نقدان إني ضل كوجو ويان ضد كوجنا أي سجان إلى أي ويان إيمانك هبينك كليا ممدد يا رؤات كيسين أي الصبرين أي قرآن كلا ورمول يري إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى بعيلها يري أرجع واري ميسد ورحكا حرو يا معشر الشباب ورواري ميسد ورحكا حرو ده أنت ده اللي يرى تهي أما تاريخ حنبك سمين أما تاريخ ونكسب بعد سمين ده يا وديار تاريخ فعلا وسمين ذلك إن يدين تنا آمنين إن شاء الله ده هذا دعوة دانو بحينا يو إيمان كنا نسينا والله هذا دعوة دو بحدان ود إيمان كنا دستان ود مساجد عمرتان ود قرآن كحفظدان وحلقات كعلماءنا أتكت حنتان ودين تبرتان وقتنا تعليم دينات وقتنا دعوة دا أتكشق إنسان نولشي نقيمة يلن الدنيا آخرا إلهي بنا وضع بركين يا سعودي إن شاء الله دنبينا الله هداف دنبي والدينتنا الله هداف دينت الله إنه معاني مرل كان الله شافيه أوتات كان الله ونحريس اسم هذيك الله